safarkeenna barashada dunidan aynu ku noolahay ayaynu sii wadnaaye markana ayna keen tagnay webigan biyihiisu qaxmayaan ama karayaan ee Biru, the boiling river of Biru. waa dhab inaad qisadiisa ugu yaraan baraha internetka ka aragtay. webigan ku dhex yaal qaybta kaynweynta Amazon uu ku leeyahay dalkan la yiraahdo Biru ee jihada waqooyi kaga yaala qaaradda koonfurta Ameerika. heerkulka biyaha webigani waxa ay kor u dhaafaan 90 digrii, heer cuntada lagu karsan karo. xayawaanka ku dhaca horay ayay naftu uga haadaa. haddii aad ku dhacdo aadane ahaana xoogay dabadeed ayaad faraha kala raaci doontaa sida dhaylo kariska laga badiyay. ma aha volcano buur dusheed ka qaxmaysa, mana aha biyo meel fadhiya oo gunta hoose ka holcaya. waa webi kayn dabiici ah dhex maraya oo haddana qaxmaya. waa uun qadarka eebe oo aan qiyaastiisa lahayn. inkastoo uu naar holcaysa yahay, haddana dadka deegaankani waxay u yaqaanaan daawo dabiici ah oo alle ugu deeqay iyaga. waaba isku daaweeyaan biyahan kulul, wayna ilaashadaan oo wayba adag tahay inaad ka hesho oggolaansho aad ku soo aragto. mid cajiib ah ayaa ah in dadka halkan ku nooli u arkaan kulaylkani inuu ka yimid qorraxda, oo magaca ay ugu yeeraan oo ah shanaytin bishka ayaa la micno ah kar ay cadceedu keentay. safrayaasha dunideenna oo dhan ayaa webigani u noqday jiho dalxiis, oo mucjisadan eebe malaayiin ayay ka yaabsatay. kuwa oo maskaxaadaneedkooda yar ka waayay waxay ku mathalaan halka uu ka yimid holacan sababaya in biyaha webigani iyagoo karaya haddana sabeeyaan.